السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحويني هوري الصومالية محمد عبد الله فرماجو iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa gaari doona magaalada caasimadda Muqdisho maalmaha soo socda. Haddaba maxay tahay sababta rasmiga ah arrintaasi ka dambaysa? Maxaa ka jira qodobada sheegaya in kulamo xasaasi ah uu ka bilaabi doono magaalada caasimadda Muqdisho? Yihiin in caqabad uu la shiri doono qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, qayb ay ka yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ay hadda jooga magaalada caasimadda Muqdisho ma laga yaabaa in uu ku biro xogahaasi oo dhan oo faahfaahsan ayaa halkan kugula wadaagi doona dhageysti ama daawade soo dhawow muuqaalkan si gudbi la gare share gare oo la sii wadaaga asxaabtaada. Sida ay sheegayaan xogo iyo warar la helaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maalmaha soo socda haddii aysan dhicin maalinta berita ah soo gaari doona magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana uu heliya xubno siyaasiyiin ah oo aan ilaa hadda la sheegin magacyadooda. Magaalada ayaa si weyn lagu soo dhaweyn doonaa, waxayna ka bilaabi doonaan kulamo kala duwan, wada tashiyo dheeraad ah, waxaana looga hadli doonaa arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka. Xogtu waxay intaasi ku daraysaa in uu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada, salaadiinta, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee waxgaradku ah dheergaradka Soomaaliyeed. lama sheegin in uu ka mid noqon doono xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dawladda ee la baxay badbaado qaran. Ha yeeshee waxaa la xaqiijiyay in maalmaha soo socda uu tagi doono magaalada caasimadda Muqdisho, la diyaariyay soo dhaweyntiisa, kana qaybgali doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, xildhibaano, wasiiro. xogtu waxay intaasi ku daraysaa in xilligan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu helayo ama uu haysto taageero ka duwan tii hore, waxa uuna xilligan hantiyay ayaa la leeyahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku dhow dawladda, waxaana ku jira xildhibaanadii ugu badnaa, wasiiro iyo qaar ka mid ah xubnaha maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan ka shaqeeya Xasan Sheekh Maxamuud. tani waxaa dadka qaar ay rumaysan yihiin inay ka saacidi doonto doorashadiisa ka qaybgalka 2026 maadaama tii ugu dambeysay looga adkaaday. Haddaba lama sheegin in sidoo kale uu naqdin doono marka uu yimaado magaalada caasimadda Muqdisho oo uu warbaahinta u sheegi doono nidaamka dawladeed ee waqtigan dalka iyo villa Soomaaliya sida ay wax u maamulayso. Ha yeeshee waxaa lagu soo koobay xogta in magaalada caasimadda Muqdisho ay tagi doonaan wufuud uu hogaaminayo, la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada, wada tashi ay la sameyn doonaan. Ha yeeshee warka kale ee ah in mucaaradka uu ku biirayo in uusan ku biirin labadaba lama sheegin oo si cad looma qeexin. Haddaba Farmaajo ayay dadka aaminsan yihiin in uu yahay shaqsiga siyaasadda Soomaaliya ugu saameynta badan, xitaa marka ay hadlaan madaxda dawladda uu soo saaro warqado in ay tahay tan ugu hadalhaynta badan oo ay damiyaan guud ahaanba hadallada madaxda dawladda ee waqtigan joogta villa Soomaaliya. adiga ka ahaan sidee ayaad u aragtaa magaalada Muqdisho in uu yimaado madaxweynihii hore ee dowladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? maxay saameyn ah ay ku yeelan doontaa dawladdan uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud? mase aaminsan tahay in wax badan uu kala hadli doono qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed? qaybta hoose noogu reeb aragtidaada. muuqaalkeena haddii uu ku soo gaaray si gudbi like gare share gare oo la sii wadaaga asxaabtaada kale.